dhallaankeeni oo caruurta waraaba ku dhowrinayno dhulkayga 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 inaan dhib galon dhaqsaw heloon dhulkayga dhacsadaan ku dhaartay dhulkayga 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 inaan dhib galon dhaqsaw heloon dhulkayga dhacsadaan ku dhaartay. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أبو صديق الشيخ فارح قبار كنا سوغان استوديو مقالة وحسن الشيخ نيوس مقالة لندن وحان مانتا ليسو ديننا قيبت لباد ورئيسي مجاهد جامع كورنيل جامع محمد آدم جامع الضلال وداوتين قيبتي كوبات برنامجك قيبتي لباد وهذا نوجد غير دونو كلية سجال بقولية أفريقية سيدتنكي iyo anagoo ka bilaabi doona dagaalkii buuraha ku soo dhaw mujaahideen jaamaceen dolal qaybtii labaad ee barnaamijkeena waa dhawahay bismillaah waxa weeye dagaalkii burcaduure markuu dhacay waxaa la sii waday markii ay ka warheleen ciidankeenii ay dhibaato u geysteen inaanu baaqan dagaalkii gudagalka مقوركا قلبيتكا إذا كوا كلا هرية قلبيتكا مركو قلي ومدسي مغيا هيبا إذا كدحدا قلي إذا كاينا عسكر باوتدو دي مقرن سارجي شوغي رجع كميد هوا شوغان ونولي قار ركبانو ركبتنا ودين إذا كشيخ ده تليس ونولي هاي ودقة وين دقة وين ويه قيبت الشيخ إلى يوم حدثتنا قيبت الشيخ نوع حق الله إبراهيم دقة وينه قيبت مرية إيو بريقنا محمد كاهن أحمد مركا وحا أبندولا وهانك اللي هذا محمد علي إلهي هون الحريص محمد علي الله بدا بريقوبا قوشودو تامويد halka dhinaca galbeedka naafin ay ku dhacday qaybta galbeedkana waxa galay Cabdullaahi Askar saddex qaybood baa waa galbeedka Cabdullaahi Askar dhaga weyne iyo kaahin waan gartay galbeedka naafin xoog laba ku dhacday ciidan halka dhexda oo gamca dheer watay uu gali kari waayay oo ma gelin iyagu annaga iyo saaxiibka loo arag waafiya ilaahay hawna xariisto arag waafiya waxaan hawlgalka ka wadnay in aan ciidanka xuduudku aanu ka daba tegin ciidanka iyaga marka reedab khaatumo marka dhabarjibin baa wadeen jeeyalaye meesha daba gorayaale gorayaxun ciidankaasaan ku samaynay damdamin weyn iyo khalkhalin wajeedinaysan marka waxa weeye wadooyinkaan u goynay waanu go'doominay inay gurmadaan baan u diidnay sidaa daraaddeed nafis badan buu ciidanka iyagu helay ciidanka meesha la yidhaahdo sheekh iyo ciidanka bariguba intuba nafis bay heleen khasaare badanna waanu u geysanay hadday miino tahay la kacda iyo haddii ay tahay ambushaan u gallo iyo hadday tahay miisaanaanu saaraba ciidanku iyadoo uu buurta ku jiro 84 bishii koob iyo tobnaad weeye ayaa diyaaraddii la afduubay Ethiopia la fadhiisiyay awal cadame buraan iyo ninkii la odhan jiray baashadiig labadaa nin baa afduubay adigu ina waraaba yar dee rag ku biiray markii dambe waa jiraan laakiin labadii nin ee qorshaha lahaa afduubka lahaa labadaa nin baa waan gartay awal cadame buraan wuxuu ahaa nin sarkaala oo ka tirsan ay jeesha nin kale macallin u laba noo dee saaxiib oo hawlgalkan wadawadayey ay ahaayeen muddana ka shaqaynay bay ahayd waan gartay waa ku guulaysteen alxamdulillah magac iyo maamuus baa SNM iyo taariikh baa ugu soo heetay waa dhab buuralayda ayay la kulmeen hawlgalkii buuraha
sidaas buu u dhacay 84 hab new yearkii 85 iyo 84 kala baxoodii waqooyiga waxaa la saaray bando in aan cidna bixin gaadhina socon aye baa la saaray waxaanu diyaarinay in aanu dhul badan burburino number 1 85 waxaanu galnay oo burburinay oo koowa meesha bisaqa oo ciidan balan la fadhiyay ciidan la yidhaahdo 55 ayaa fadhiyay konton iyo shanaad guutadii konton iyo shanaad indhaheeda hore ahaayeen duruqsi iyo meesha la yidhaahdo gorayax oo haysto ibrahim caydi kinaga soo jeeday lab le saddexdii iyo barhkii baanu galay afartii oo dhow waxaana watay ninka la yidhaahdo axmed mire maxamed nuux axmed mire mujaahid axmed okay 5 nin baa nagaga geeriyooday 6 waa nagaga dhaawacantay annagu xerada waanu qabsanay waa burburinay tangeeri waa gubnay haddii alla ka dhigo gawaadhi waanu ka soo qabsanay waanu ka soo baxnay annaga oo guusheedii xambaarsan baanu ka soo baxnay aqal noqoteen waanu soo noqonay hub intee leeg ba qaadateen hubku wax weeye ma hub waaweyn maanaan helin laakiin gaadiid baan ka furan gaadiid baa ka furateen waxaan caawinayay saaxiibadayo halka yagii baan ku noqnay iyo fadhiisanka yagii waa 85 waxaa xigay meesha la yidhaahdo dabakoryaale waa burburinay xerada maanaan qabsan way meenaystanayd khasaaro badan baa gaadhay annaga khasaare waana gaadhay laakiin ma badnayn 86 85 87 meesha la yidhaahdo 85 waxaanu burburinay meesha la yidhaahdo labi sagaalaad 14 baabuur baanu ka kaxaysan 14 gaadhi oo gaadiidkii ugu badnaa mala furataanba waxaanu kaloo burburinay meesha la yidhaahdo ina guuxa meesha la yidhaahdo ina guuxa ka sokayso iminka magaceedii waa laqsanahaye yanaanu burburinay waxaanu burburinay belidig ciidankii fadhiyay 13 baabuur aanu ka kaxaysan oo hal taangi ku jiro oo bmk 40 ku jiro waa directeen markaa ya waa directeen maalinta والله SSDF waan isgarabtay inay waxay galeen buu holle iyana sidoo kale waa laga soo bilaabo buuragalka dabadoodii 85 86 ilaa iyo meesha la yiraahdo toon baanu galoo qabsanay fara weynaanu qabsanay waxaanu qabsanay meesha la yiraahdo geed balaad xuduud oo dhan baanu dabas ka dhignay waxay noqdeen in awood laga baqa ay noqotay SNM ilaa awal ku dhufo ka dhaqaaqiyo wax yar iyo halkan ay ku dhunteen iyo had la isu badheero had cad la isu badheero iyadoo nin aan laga gabanay bay noqotay 87 ayaa la soo galay ayaa timi 87 waxaa la
galay stationka burco saldhiga booyadii anigu dee taa booyadahan dee liganahay maalintaa booyadaha iyo xiisaha ay dadku u qabaan haddaba maalintaa booyadaha inoo taataabo iyo sidiiqoo kuu taataabtee maalintaa booyadu waxay ahayd maalin cad oo ilaaha casaawajalla ahi qofku marka uu guulaynayo si yar buu gulaya maasha allah waxaa isugu kaaya yimi taasaa dhaba ciidan ilaahay baa awood lehe ay markaa isleeyihin waa awood badan yihiin oo bisiqa waraabeeye meesha la yidhaahdo haddii nasiye iyo talabuur isusu intaa isaga yimi intaa iska yimi waxaanu iska helnay booyadaha markii hore waxaanu kasoo afduubnay meeshii xaggaa ka timaadeen idinku xaggaa ku sugnaydeen markii hore waxaanu ku sugnayn meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo raamale raamala ka timaadeen haa maxaa ujeedada u socoteen shidaal shidaalaan baa idin haysay shidaal baan doonin imisa intee baa hayd burca ku xoreyno tira intee laag baa hayd 17 nin laba tiyotaan wadana mid guud banaan oo saadka noo sida iyo mid guud saaran yahay anagu 17 baan afar baan maanta ku noolahay laba maxamuud iyo saciid yare oo saaxiibka harag waa faa'iideeyay markaa allah u naxariisto ilaahay u naxariisto taliyu noo ahaa anaa baan dulan u ahaa alla baan dulhayda kada waxaanu ka soo afduubnay meesha la yidhaahdo gumbur maygaag oo beer iyo u dhaxaysa meesha la yidhaahdo unuli laba booyadood oo labadu ay shidaalka ka keenaan meesha la yidhaahdo jabuuti bay ahaayeen dadna waxa uga shambeer waxaa ay geyn jireen wadadii garowe halkaas soo marteen marka raamala ka timaadeen waxaanu soo dadka halkaa u faahfaahay xayr ducataan waxaanu soo marray meesha la yidhaahdo meeshan la yidhaahdo haddii alla ka dhigo habeedle halkaasaanu soo marray dabeedna halkaasaanu soo marray xayr ducato xayr ducato ayaanu qarkeeda soo marray balambaal baanu marray in yar xagga ka marray meesha la yidhaahdo baanu marray gumbilbax faayaanu ka tegni dabe halkaasaanu 8 oo wax dhiman subaxnimo laba bootaas isu dhaafiyay mid waa buuxdaa midna waa maran shidaalka soo shubtay marka waa markii wadada talyaanigu samaynayay boosaaso halkaa gasheen markaa faayo marka faayo ka tegni ayaa ka dabeedna waddaas ugu leexnay dabeedna halkaasaan u galnay dabeedna labadii baa halkaasaan kasoo dunay gumburli wax baanu soo marray oo soo kaxaysan labadii boodood waxaanu soo marray meesha la yidhaahdo beele eeday balambaal baanu dhinac ka soo marray halkaas habeenkii bay ogaadeen inaanu gudaa jirro waxa meesha la yidhaahdo aanu iska helnay cadceed galabeedda meel la yidhaahdo guryo dhigala waxa weeye waa 10 iyo barhkii subaxnimo meeshu geed ma leh buurna ma leh boholna ma leh waa banaan gurmadna ma leh subxaan allah ilaahay u baadiya gurmada ilaahay baa gurmada halkaasaanu iska helnay 12 beebe meelahaasaanu halkaas ku helnay 12 beebe taliyihii nasiya markiiba waa dhintay oo awowe la odhan jiray gaali barona wadata yaa waan taaggaa baadi sooc baan isula baxnay taaggaa markaanu soo sooca ay tahay 12 oo dhow ayaa ninkii odayga ahaa ee meesha haystay gaaska haystay oo cadceed ayaa wuxuu ka qaylinayaa meesha la yidhaahdo qoryaale gobka weyne qoryaale yaa idin dhaafin waryaa yaa idin dhaafin hadday idin dhaafaan maxkamadda weyla joogtaa ilaahay furan inaan maxkamad waxaan idin saarin inamadaa yaryare maalin walba waxay doonaan intay samaynaya haddana iska tegaya nimankaas way tegin qabta waxaan naga tegay gaadhigii saadku noo saaraa iyo baan naga tegay haguu qabtay adigu dee raggu isku wada mid maaha dee kolley ma garanaysa waa diday ninba la khalkhalay labadii booyadood waxay wadaanba waa naga fadhiisiyeen
midna sanadhalkayga ka dhuftay midna taanga biyaha taagga dheer baanu isula baxnay 4 beebe baanu ka gubnay 4 beebe baa lagu yitray markaanu 4 beebe ka gubno oo seeka uu ka gubay ayaa beebe walba cararay bixi fogaaday mid baa meel fog naga soo toogtay oo dareewalkii buu gacanta ku gooyay waa shagaraabo Allahu naxariisto ilaahay naxariis labada shakala dambana mid buu ku jaray ushii steeringa na bartankaasoo kaga dhufto waxaa soo hadhay nud yar xasoo yar baa soo hadhay taayirka dambana kaga dhufto subxaan allah tii noogu daray baa gaadhigiid ka fadhiisay ma fadhiisan uni ilaahay la jiraa siduu guuleeyay waa yaqaan waxaan kugu yidhi wuxuu yidhi jaamac saaxiibka ilaw ku naxariiso harigwafi maxaad ilaahay xaajis naxariisto lii أنا وافي جامع ما هذا ما لنا سامع كاسان كل إلهي بيلو لنا مركز الدق أنا يقول صوت العبد هردق أنا هي بقول محمود ولا دق أفرق اللي يقول صوت شنبا نقطة أنت أنقاري كسر بدل يطايرك إنا غير هروني منك waa idinkiyo ciidamada isaga soo gurmaday 5 meelood ee muggiyo miisaanka waxaan noo soo muuqda markaa kuwii taalabuureed oo lagu soo dhow gaadhigii intuu lambar 3 saa dhulka ugaga gooyay oo bahalkii kridootadiisa ugu riixay oo dhaqashay nin waliba si eego salom soo noqonaya وضمن العضلاء طبعاً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن waxaan sitaa 7 الرحيم asuuki markuu taagan yahay cabdi aarna wuxuu ii sidaa 3 xabadood oo boosh dhabar uu ku sido boosh dhabarna waxaan ku xambaarsanay 2 6 xabadood baa wata dabeedna cabdi aar baa yidhi warigaho rasaastaada maxaad samaynaysaa markaasuu waa isdilayaa وما حد يدري إذا ما قلت له أنت والله يقول قبل ما نبقى يا موهين لكن اللي قد تدي نبقى موهين إلهي ونحرست الله ونحرسته مركزان كوري أنت تنسى سديتا يبقى كوي من ما يعني ولا بقول هذا فترة كات كم كسول فترة كوي من ما أتلا يستلني أنا جاي قهله وبالله لما هي أساسا وضع ninkii ciidanka watay oo harubka sare ku fadhiya dagacaleen nin walo taliyaa magaciisa waa ku haya dagacaleen talabuur haysta kusoo dhawaado anigu tuutaan gashanahay erogafina tuutu gashay inta kale waa dharad ciidan bay ku moodayaan markaa waa gacanta ii taagaba warana layn ciidankoodi moodaya waa soo dhawaada 50 mitir markuu ii soo gaadhay yaan faraha kaga qaaday baasuki halkaa uu exaaska ka sii daayo qiiqa aad kaga xaraysay gudaha xabaddu ku qaraaday aan abtigayo maanta buuhoo la jooga oo la yidhaahdo ina maya la-aadan faaliye ayaa gandharika ride calooshu ka dooxda abtigay baa aaway u noqday cabdillaahi maxamuud hangool allah u naxariisto ilaahi u naxariisto hooyadayna adeerkeed kun weeyo walaashay iyo eedadayna waa u kala dambeeyey rasaastii yareeda lagu bilbilay hungurigaasaa go-ay taliyii marbaa looga cararo inuu dhintay baan filayaa dee berigaa waxaan kugu idhi annaga iyo nafi waanu kala quusanay shantayada waraabaha loo suneeyey cabdi aar muxuu sameeyey ninkii cabdi aare markii aad ka cabdi aar markii aad kaga xaraysay dee wax weeye waa ninka dusha ka tooganaya nimanka dabaduu qabtay annaga oo iska majasuuxa oo leenahay tolow
sidee bay noqonaysaa ayaa bahalkii gaadhi ahaa oo sidaa u libidhsan harigwaaf daayirkii laga soo bedelay harigwaaf haragaafi allah u ilaahay ha u naxariisto maxamed xaashi muuse geesi laday fula markaasaanu fulo wadharqada halkaan halka ka yar marnado gaaligii soo hagaajiyo lug ka soo bedelay bilelaan marka halkuu kaga soo bedela tegey dee adigu 2 kilomitr ilaa 3 kilomitr markiiba dee 4 isbeera baa saaran dadna halkaasuu kusoo bedelay markiiba dee ma taqaanaa 4 darawal baa nala socda kaa gacantu go-antay mooye 3 kalaa nala socda waanu ku talagalay waxan sidaa gaaligii baa fuusheen adigan ful riya xidho iyagoo geed saaran bayna arkeen oo dabeedna dhirtii bay ka daateen oo dabeedna waa yaaceen waa hareen marka waanu galbanay ninkii wuu naga dhaawac dhintay baasha garaabo ilaahay ha u naxariisto allahu naxariistay nin aada u tafa buu ahaa ilaahay ha u naxariisto kaaboedu ilaaha casaa wajalla baa ciidan malaa'igeed noo keenay oo nagu daray oo nala dagaal galay oo aan hubo oo aanu isweydiinay waryay ahaayeen ciidankii badnaaye areerteenna marayay oo aan nin quri odhan 4 nin baanu 17 nin maanta aanu ku noolaa سعيد وسلام يا وعاقل عاقل فارح محمد وي موسى عبد الله فارح محمد وريركي محمود كلام ومطرد ورير عداوي كويت بوشوغا اسنوا محمود ولد بليا اسنوا سلام يا محمود يري محمود عمر بليا هرجيسو جوغا واسكا يري طبعا وحنوصنا يا الهي عافمتك الهي عافمتك الهي عافيه انه وانيغا afartii sano hadda ilaahay amriga ku dheereeyana ku leenahay hada ma garatay si wanaagsan intaas ayay ahayd dagaalkii howlgalka murco nin la yidhaahdo cabdi fayr baa watay allah u naxariisto markii dambena ku geeriyooday meeshii la yidhaahdo xeere gaabo ilaahay ha u naxariisto nin aada u daf ahaa kamaan doo soo maray meeshii la yidhahdo manaas lagu soo tabaray macallin buu ahaan jiray ninka la yidhahdo haragwaafe maxamed xaaji muuse walaaladii waan salaamayaa weli xamuud hooyadii hadday nooshayna waa salaamaya iyo walaaladii gabadhiisiina waa salaamaya uu ka dhintay ana cabdi fashle alaguna waa salaamayna aad iyo aad baan idin salaamayna inta dhimatayna ilaahay ha naxariisto intii dibadda intaan 88 la gelin laakiin dagaalka xooggiisii wuxuu isbedel keenayaa gudagalkii weji kale u yeelanaya weji kale sababtu ay tahay dad yar baanu ahayn markaanu Itoobiya joognay laakiin markii gudaha la soo galay ummadii oo dhan baanu nimid muqurkii ha wala ka faa'iideen ummadii oo dhan baanu nimid wala ka faa'iideen ha oo barakacday oo dagaalka qoriga qaadatay oo haddii alla ka dhigo qof waliba uu dagaalantay rag iyo dumar galab iyo gaashaan baa heshay ha ma sha Allah salaamaya dumarkii beriga nala ma garanaysaan dee nala socday ee na caawinayay aashahaada halkan ay joogtaa canab jarmalka canabeen waxa weeye canab shakaal faadmo cali abukar ilaahay u naxariista aad iyo aad baan u salaamayaa la tirin kari maayo hibo gabadhii qoriga ku furatay haya weyni dina xoog baasle gabadhiisii ilaahay ma garatay aad baan hablaha u salaamaya habla fara badan baa idinla dagaalgalay waxa weeye haddaan habluhu jirin halkan kuma socdo ma sha Allah ilaahay hadaayo halkan kuma socdo hablaha inta nool cimrigooda Allah dheereeyay leeyahay iyo mujaahidiintaba intii dhimatayna ilaahay ha naxariisto halka waxaanu ku soo gabagabaynaynaa qaybtii labaad barnaamijkii ama waraysigii qaybtii labaad ee barnaamijkii ama waraysigii mujaahid Cornel Dolaal jaamac maxamuud aadan Dolaal iyo qaybtiisa labaad aynu soo gabagabaynaynaa waxaynu u guda gali doonaa qaybtii saddexaad iyo wacdarihii ayaa idin soo socda burburintii maalmihii qadhaadha iyo ismuteen isna wajaheen nin odayo la yiraahdo Tuki oo ku sugan dalka Canada waa anigoo habwasti oo farax oo idin leh to be continue insha Allah qaybta saddexaad oo iyadana qayb aad iyo aad u xiiso badana anigoo korneelku waxaan idin leenahay والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا سعود غيب صديحات.